باي سنة دوكسيديدا free service kaas wuxuu ahaay waxaa laga bixinaa degmada Waaberi meel kamid ah xarun ka furnay waxaa la siinaya talo bixin ku aadan waxbarashada daily life-ka iyo mashaakilka sida human rights-ka dadka tacadiyada loo geystay waxay say ula dhiil gareyn lahaayeen meesha u dacwoon lahaayeen sanadkan wuxuu u baran lahaay education dugsiga sare oo dhameeyay kulliyada fiican inoo galaa kulliyada fiican kulliyada shaqo badan lagu heli karaa dhinaca helbiis waxaas kale tan kala dardaarmo talo bixin lacag la'aan waa tahay Cabdullaahi waa maasan tahay dhageystaha hadda khad ku janaysanaya halo assalaamu calaykum wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh saaxiibkii qaaliga aad baan ku salaamaday saaxiib farsamada iyo asxaabta stuudiga kula sugan ee ururka aad ku wanaagsan iyo dhageystayaasha sharafta leh dhageysanaya warbaahintan radio mustaqbal dhammaantiin waxaan idin leeyahay galab wanaagsan oo waxaan walaal waan ku salaanay anagana sidoo kale ururka Youth for Somalia oo YFS loo soo gaabiyo oo micnaheedu tahay dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay Cabdullaahi Xasan Cashari oo gudoomiyahooda ah ayaa stuudiga kubadda radio mustaqbal galabta nagula sugan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku taxan barnaamijka wacyiga barbaartana su'aalo dhowr ay weydiinayaan su-aasha aad weydiin lahayd ku aadan ururka aad weyn saaxiibkii aad baad maasan tahay mar kale aad baad maasan tahay magaceygana waa maxamed axmed sheekh xuseen maxamed king love degmada xamar jajab xaafada sheelar ayaan ku sugnahay su-aasha aan weydiinayo oo koowaad waxay tahay ururka sanadka ururka la aasaasay iyo ururka ninkii jecel inuu kusoo biiro sidee buu ugu soo biiri karaa ururka oo hadduu jecel waa tahay barnaamijka wacyiga barbaarta idaacadda waa mustaqbal 97.7 megahertz galabta waxaa diyaar noogu ah stuudiyaha kubadda radio mustaqbal aan ku casuunay gudoomiyaha ururka Youth for Somalia oo loo soo gaabiyo YFS micnaheedu tahay dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay mudane Cabdullaahi Xasan Cashari oo stuudiyaha koobaad su'aalo dhowr ah aan ku weydiinay kadibna dhageystayaasha hadda su'aalaha ay weydiinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wacyiga barbaarta ku taxan galabta su'aal ciinkee baad weydiin lahayd Cabdullaahi Xasan Cashari oo kamid ah ururada ka jira magaalada Muqdisho gudoomiyahooda qadkan iyo qofka ku jira ee doonaya inuu wacyiga barbaarta ka qayb qaataan seenaya halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca iyo deegaanka codkaada sare u qaad si aan ku maqalno dadkaadii baar mustaqbal aad u horumar gudahan galab wanaagsan codkaada waxyar mikrofoonka soo u dhaweey galab wanaagsan sidoo kale walaal qaali ah walaalkeen magaceegu ayaan xaaji degmada Wardinaan Kaawa ayaan su'aasha aad weydiin lahayd Cabdullaahi Xasan si wanaagsan walaalkeen Cabdullaahi hadana ururkan hore u sheegay in wax badan u qabto waxaa weydiin hadana ururka asbaabaha loo aasaasay bulshada mucaawiya asxaabteeda ururkan u baahan asxaab aqoon loo baahan yahay asxaab aqoon leh waxaa jirana wadankeena aad burbur inagaalo hadda aan ka baxna حاجة أصحاب هذا محبرن إن جعل إني أروح كسب بيوان أصحاب تندر أروح مكسب بيو كرا ما أصحاب أقولنا لو بهاي ويدينا ولا الكه هذا وما صنتهاي هذا وما صنتهاي سيد عبد الله سحرتي عبد الله ياي وما صنتها ولاشين أيان كاجا مهد علينا أصحاب ما فهمتم في الأساس هو فهم سفع أنا بفهم سؤال هاد صوبت له أساسي وهيك عدا يا هالكل أوروكا Dragon Youth into Safe Site in loo jeedo dhalinyarada dhanka amaanka ah ama dhanka dhowrsan waxa su'aasha kale oo ah dadka loo baahan yahay nooca ay yihiin sida data uu sheegay education background kuma xirno heerka waxbarashada qofka uu maraa qof kasta oo u diyaar ah in uu muxuu ahaato wax qaban karo uu qaban karaa wax qabad kasta qof kasta wuxuu qaban karo inuu nagu caawiyo qofkii uu caawin karo joogteen oo imaasho muxuu ahaato hadal muujin qadiyada oo la taageero waxaan ku sii dhiirigelinaynaa marka asaga noo yimaado in wax barto asaga danta noqon doonta waxbarasho lagu dhiirigelinaya albaabka furay ashcaari waa ma santahay qadka telefoonka iyo dhageystaha ku jira assalaamu calaykum calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh saaxiibkay xasan toob adiga asxaabta dhageysanaysa mustaqbal Yuusuf Cadale waxaan leeyahay idaacadan aad ku horumartay galab waan Maxamed Xuseen Al-Ghazali degaankoodan KBB محمد حسين الغزالي قالت هو دغيسنay saan filaya aadan u dhageysanayaa barnaamijka wacyiga barbaarta si wanaagsan wacyiga barbaarta mar labaad mar saddexaad idaacada mustaqbal ee aad ku horumartay waxaan leeyahay galab wacan sidoo kale galabta waxaa stuudiyaha koobaad radio mustaqbal la jooga gudoomiyaha ururka Youth for Somalia oo YFS loo soo gaabiyo micnaheedu tahay dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay Cabdullaahi Xasan Cashari soo dhawaad galabta isla markaasina su'aashaad weydiin lahayd الغزالي هذا وما سينا ما دام أنا قاعد أحد على يرد الصوماليات سيدو ما دام مدحضه وساسو كل وياه أنا قصاصو كلا نقولنا هاي مقدشو لكن مرة والبحال السويدية إن دلين مال يسوي ما دو كدي أي سمايسته قدومية أي سمايسته مامول أي سمايسته مارستريشن أي سمايسته ما حي بلشة وقبتها بيدك كي سويدية أنا لكن قدوميها مرة بعد مرة حد مبروك ما ليه لبس سؤال بان ويدينا ومهمة
soomaali waxay tiraahdaa qawda maqashii waxna haw qaban markuu qofkii wax loo magacaabo wax qabasho ma leh waxa laga arkay waxay tahay qawda maqashii waxna haw qaban mideedii kale soomaali waxay tiraahdaa meel ka muuqo ama ka maqnaaw gudoomiyaha muxuu bulshada u qabtay muxuu ku ziyaadin karaa muxuu ka nasqaamin karaa maadaama 22 sano dalka uu ka jiray dawlad la'aan kala daadsanaan lagu jiray bulshada aysan macnaha ay haysatay macnaha ay sheeg muddadaasi 22 sano nolol xun lagu jiray kala daadsanaan hadda lagu gudbo federaal loo gudbay kumeel gaar lagu gudbay federaal la galay maadaama midnimo la'aantii muddo badan ay soo jirtay ma asaga iyaga ma siyaasad ay ku jiraan ma siyaasad la'aan ba ma macnaha ma hay'ad gooni ba ma dalad caadi oo iyaga soo abaabushay ba ma bulshada dhalinyarada dooratay ba marka gudoomiyaha waxaan لا حسن وحوجا أنا وحير إسوي درسنا هذيك الرالية واتا إسوي درسنا وما صدق ما شاء الله أنت سود ولالكي الغزالي ولالكي الغزالي سود واف اس أما يوث فور سوماليا ما هن أور سياسات وأور الضوء حقوق الإنسان كجار أهان جود أهان أمة سوماليا جار أهان دلنيرة سوماليا حقوق ضوء waxaa markasta awoodda saarnaa ama xoogga saarnaa inaan muujinno doorka aan ku leenahay in aan wax baranno shaqo helno nala ammaan geliyo muxuu ahaato in nalaga siiyo door waxyaabaha annaga naloo qabanayo in nalaga siiyo choice-ka annaga nala siiyo in muxuu ahaato la muujiyo